شكرا. waxaa degmada taariikhiga ee Baargaal laga furay garoon kubadeed kaasoo ah mid casri ah oo lagu talagalay in lagu dheelo kubadda cagta. garoonkaas oo ay baahi weyn u qabtay bulshadu. ciyaaraha ayaa muhiimad gaar ah u leh dhalinyarada iyadoo kor u qaada horumarka iyo isdhexgalka bulshada. garoonkan cusub oo lagu magacaabay Saymaro ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee laga hirgeliyo degmada Baargaal, kaas oo fursad u siinaya dhalinyarada degmada inay xirfadooda kubadda cagta kor u qaadaan. sidoo kale martida soo booqata degmada Baargaal ayaa fursad u heli doona garoon casri ah oo ay ku ciyaaraan. munaasabad kooban oo loo qabtay daahfurka garoonkan cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay xogayaha degmada Baargaal mudane Cabdixakiin Abshir Muumin, bahda sportska degmada, waxgarad, ganacsato, ururada dhalinyarada iyo marti sharaf kale. ugu horreyn waxaa hadal kooban ka soo jeediyay xafladii lagu furayay garoonka cusub maamulaha garoonka mudane Saalax Cumar Samatar. garoonkan dhismihiisa wuxuu hadda socday muddo 5 bilood ah. bisha 8aad baan bilownay. intii ka dhammaysay maalin walba waxbaa lagu daraayay. intii ka dhammaysay maalin walba waxbaa lagu daraayay. qadarta rabbi waxay noqotay inuu maanta soo gabagaboobo aynu xafladiisii aynu galabtay u fadhino. insha allahu garoonkan waxaa noo muuqatay baahida ay u qabto magaalada Baargaal inay yeelato sallax. sidaa darteed rag bay maskaxdiisa ka soo maaxatay. garoonkan waxaa maalgeliyey nin la yidhaahdo Cabdirasaaq Siciid Cumar Samantar. waa wiilaan adeer u ahay. aniguna waxaan ka ahay howlwadeen baan ka ahaa. hawsha qabashadeedaan lahaa. mulkiile ninkaasaa ah. insha allahu garoonkan waxaa iska leh magaalada Baargaal. waxa weeye gaar ahaan waxaa iska leh dhalinyarada waxa weeye iyo bahda isboortiga ayaa iska leh. guud ahaan haddana reer Baargaal baa leh wax kasta oo baahi ah oo loogu baahdo ayaa lagu qaban karaa. xogayaha degmada Baargaal oo matalay maamulka ayaa dhinaciisa soo dhaweeyay furitaanka garoonkan cusub. gaaraan oo waxa weeye dhibaatooyin ka soo gaaraan in maanta in la garoon u dhigma garoomada caalamiga ah oo in maanta degmada laga dhiso aad ayaan u soo dhaweynaynaa. sidoo kale waxaa madasha furitaanka ka hadlay nabadoono, cuqaal iyo waxgarad iyo marti sharaf kale oo dhammaantood soo dhaweeyay garoonkan cusub, iyagoo ugu baaqay dhalinyarada inay ka faa'iideystaan, ganacsatadana ugu baaqay inay dalka maalgashtaan oo hindisiyaal cusub keenaan. salaan kadib waxa weeye halkan hadda waa laga soo sheekeeyay waa daafurdii kubadda cagta. waxaan leenahay wixii wax soo beeriya maasha Allah. waxaan rajaynaynaa in rag kale wixii ka dhiman magaalada ay ku soo biiriyaanin. marka waxaan leenahay maasha Allah wixii ka shaqeeyay iyo wixii qabanqaabiyay iyo wixii magaranaysaay wixii magaalada wax taraaya. waxaan leenahay Allah ha gacan galo, ha garab galo. garoonka degmada Baargaal oo maanta la daahfurayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. haddaanu nahay qaybta nabadoonnada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. maanta waxaanu taaganahay kudaya Baargaal. maanta waxaanu taaganahay kudaya Baargaal. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaam aad iyo aad bay u mahadsan yihiin cid walba oo fikirkan lahayd inaan galabta helnay garoon aad u qurux badan oo laga baxay boorkii iyo siigadii lagu ciyaari jiray. runtii waxa weeye waxyaabaha horumarka ah oo ay soo kordhisay degmada Baargaal. taas waxaan uga mahadcelinayaa ciddii fikirkan lahayd, ciddii maalkeeda ku bixisay iyo ciddii muruqeeda ku bixisay. sidoo kale waxaan u baaqayaa oo baaq u dirayaa dhammaan shacabweynaha reer Baargaal meel kasta ay joogaaniin inay deegaankooda ay quruxsadaaniin. waxyaabo badan oo ina ka dhiban oo uu ka mid yahay in waxbarashada la hormariyo, jaamacado aynu dhisano, sharikaad aynu la nimaano,
deegaankii la maalgashto waxyaabo fara badan oo deegaanka ka dhiman lala yimaado hal abuurna lala yimaado oo mar walba la isku dayo wixii deegaanka aan online oo markaa ka maqan in la samaysto qof walba deegaankiisa isagaa quruxsada galabta garoonkani wuxuu inoo yahay tusaale runtii kuma qabsan doono oo keliya kubad laakiin waxyaabo badan oo uu ka mid uu sheega maamulka garoonku sida xafladaha ciidaha oo kaleeto kulamada gaarka ah waxaas oo dhan baan ku qabsan karnaa waxayna ahayd baahi jirta oo loo baahnaa oo deegaanka ka maqan saas darteed marka waxaan u baaqayaa dhalinyarta wax baranaysa kuwa jaamacadaha ku maqan oo dib u soo laabanaysa ganacsatada in deegaanka la maalgashto deegaanka la quruxsado hal abuurna lala yimaado waa dhismuhu marka wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan wixii loo dhisay wax ka baxda badanna waa looga faa'iidaystaa isboortiga marka laga yimaado waxyaalo badan oo badan baa lagu qabsadaa sida uu howlwadeenka goobta uu sheegay Saalax Umar Samatar waxaan uga faa'iidaysan karaa salaadaha qaarkood in lagu tukado sida ciidda roobdoonta xafladaha waaweyn markii loo baahdo la isugu yimaado lagu qabsado wixii danaha magaalada markii looga hadlayo dhismahaasi faa'iidooyin badan buu marka leeyahay waa dhismay noo soo kordhay ciddii maal gelisay oo ka shaqaysana ay maaragtay ku mahadsan yihiin oo aan ku bogaadinayno kubaddu asal ahaan waa shay mubaaxa weeye waxyaalaha marka gaarsiinaya xadka taxriimka inay ka ilaaliyaan oo ay ka mid tahay dhalinyaradu markay ciyaarayaan cayda oo kaleeto inay iscaayaan sidoo kaleeto inay cawradooda ay muujiyaan oo faydaan sidoo kale waqtiyada salaada waa waxa ugu muhiimsan waqtiyada salaada in la ilaaliyo oo marka salaada waqtigeedu uu dhow yahay oo kale la joojiyo kubadda aad baan u soo dhaweynaynaa salaxa iyo ciddii fakarka iyo waqtiga ku bixisay qurba joogta iyo dadka deegaankaba qof walba hadduu wax degmada ay u baahan tahay oo waxtar u ah oo horumar u ah inay qof walba oo madaxiisa maskaxdiisa ka guuxaya inuu soo bandhigo dad badan oo waqti iyo juhdi ku bixiyana waxaan leenahay ilaahay maadaama inay ka gaarto عامل